aqoon-yahanku hadduu noqdo qof la iibsan karo sultadu iibsan karto dawladuhu laaluushi karaan oo iibsan karaan aqoon-yahan maaha hadduu aqoon-yahanku noqdo qof qabiilku iibsan karo tobanooda intay kuu yimaadaan yidhahdaan reerku saasuu damcay waa lagu iibsaday hadduu aqoon-yahanku noqon karo qof la bajin karo oo ama sultada jirtaa bajin karto baqagelin karto ama kaljarka bulshadu ay leedahay ee xun kaljarka san waa inuu ku baqageliyo waa inaad ixtiraamtaa inuu ku baqageliyo maaha laakiin kaljarka liitaa uu ku baqagelin karo aqoon-yahan maaha ama aqoon-yahankaan rabnee wax beddelayay maaha sida ogeed dhibtayna haysata caalamka saddexaad waxaa ka mid ah aqoon-yahan badan oo ay lahayd wuxuu noqday mid hungurigu wado ee aan aqoontu wadin aqoon-yahan badani wuxuu noqday mid aan ethics lahayn mid aan akhlaaqiyaad lahayn ee maxay xagga shilinku jira uun jira aqoon-yahan badani wuxuu noqday innagu dhaqankeenna ka soomaali ahaan ka umma soomaaliya dhib daakhiliya baynu leenahay dhib gudeed iyo dhib khaariji ah bini aadam walibana labadaa dhibood buu leeyahay dhib daakhiliyaynu leenno oo ah inaynu qabiil u qaybsannahay siyaasaddeennu waa qabiil mararka qaarkood waxaan is idhahdaa axsaabta siyaasiga aynu leenahay maalan talow haddii ragga u taliya la kala bedelo reeruhuna soo ma kala guureenu haddii nimanka madaxda ka inta mid la qaado xisbiga kale la geeyo reerkuna waa uun xagga kale ka soo wareegi lahaa waayo haddaynan ideology haddaynan waxaynu wax ku qiimaynayna rumaysanayna qof rumaysannahay ma aha inuu qofkani xun yahay anugu kama hadlayo laakiin waxa weeyaan haddaynu shakhsana qof daba soconno aynan mabaadi' daba socon yaa aragti qofka in la raaca wax xun maaha laakiin qofku waa inayn waxaan ku raacsanaya mabaadi' iyo aragti tahay laakiin hadday noqoto inaannu isku reernahay inaan ku daba socdo dee aqoon-yahana sheegana magac kale sheega markaa hadhow ha odhanin literate man baan ahay ama learned peoplekan ka mid ahay ama scholar baan ahay ama academic baan ahay ama intellectual baan ahay erayada tirada badan ee af ingiriisiga meesha laydinku sheego ha sheegan wax kala sheego min reer hebel aan ahay iska dheh odayadu saasay rumaysnaayeen waxaan inooma sheegtaan waa suldaan waa caaqil waa nin reer hebela reer hebel waxay ku go'aan buu ku go'aa khalaas isaga kamaba qasnayn marka horeba duubkiisuu sitay laakiin haddaad adigu aqoon sheegatay aqoontu waa inay wax soo kordhisaa waa ina cultural revolution samaysaa waa in bulshada aan bedeli karnaa taxadiyaad khaarijiya jira oo ah tajhiil ulumma umamka si aad u gumayso si loo gumaysto waa in aqoon darro lagu hayaa umamka si loo gumaysto waa in la tajwiiciyaa hadday madaxa yaro taagaan waa in la gaajaysiiyaa cunaqabatayn dhaqaalaha waddankan lagu soo rogay waxaan baa lagu soo rogay umamka si loo gumaysto waa in la bajiyaa waa in la baqageliyaa haddaasaa yeeli weydaan riskaa laydinka jaraya waxbaa laydinka jaraya hubka laydinka iibin maayo waa laydin cunaqabataynayaa duwalilmaariqa baad ku biiraysaa dowladaha shaydaanka ah rag baa qaanuunka iyo xoogga iyo waxa uu dhistay oo ku talagalay inay hayaan say iyagu rabaan inay wax u sawiraan laakiin anigu waxaan rabaa inaan xor ahaado meel laga xoroobana caqligaa ugu fiican marka koowaad caloosha inaad ka xorowda inaad caqliga ka xorowdaaba ka roon markaad caqliga ka xorowdaabaad calooshana ka xoroobi kartaa waxaan u baahannahay markaa taxadiyaadka khaarijiga ama challengeska dabadda ka imanaya inaan ka xorowno challengeska dabadda ka imanaya waagii hore duwal baa wax gumaysan jiray oo xoog ku qabsan jiray iminka iyo dubuun waa sida quraanjaday hadda u socdaan quraanjadu maxay way tamar yartay laakiin xagee ka soo baxdaa meel kastoo jeexan unbay fudh ka soo odhanaysaa haddaad iska gufaynindi
bulshada tasaduceeda bulshadu hadday burburto uraanjoo dhan baa ka soo dhex baxda bulshada Soomaaliyeed way burburtay culturally bay burburtay dawladnimay burburtay dhaqan baa burburay diin baa xataa burburay dadnimadeedii baa burburtay dhaqaalaheedii baa burburay wax kasta ay soo qaadatay way burburtay dadkii dabadda ka ahaana way ka soo dhex tooseen maalin walba seminar yar iyo capacity building baa laynoo wada soo capacity-ga numa dhismo ilaa ka inoogu sarreeya baarlamaan baad maqlaysaa la leeyahay capacity building baa loo samaynaya kuwa academiga capacity building loo samaynaya waxna la inooma sheego waxaynu noqonnay inta laynaga dhex toosay ee dawla taxta dilli baa talisa dawladda hooska waxay yidhaahdaan waxaa laga yaabaa wasaaradaheennoo dhammi NGO-ya hoosta kaga naban iyagu masruufa bulshadeennoo dhan maca tujaarteenna maca waxeennoo dhan balaayo kale hoosta kaga mudan oo dhaqaale ahaan ku hoggaamiya waxaynu noqonnay dad keenada loo hayo keenada soo ma taqaaniin awrka dee xadhigga marka lagu xidho keenada la xidho ee loo faruur xidho waa la wadaa uun hadduu madaxa yaro gijiyana faruur xidh baa loogu daraa maca faruur xidhka aynugu xidhan idan ayuha alaxiba waxaad tiin da'yartii akademika ahayd ee wax baranaysa ee jaamacaadka joogtay waxaan idinka rabaa waxa weeyaan inaad kayd aqooneed samaysaan aqoon kayda inaad samaysaan waxaan kaloo idinka rabaa inaa xis naqdiya yeelan xis naqdiya macnaheedu waa maxay waa inaad xorowdo inaan maanka laydinka degin oo laydinka gumaysan inaad xor noqotaan intaa markaa yeelataan waxaa awood u yeelanaysaan inaynu bulshadeenna bedello bulshada dadka ugu badan ee bedeli karaana waa aqoon-yahan hadduu aqoon-yahanku yahay mid qandiilka toojka midu sida ummadda hadduu noqdo aqoon-yahanku waa qof dadka u ifinaya jidkay mari lahaayeen aqoon-yahanku waa mid dadka u ilaalinaya kaljarkooda wixii san iyo dhaqan iyo diin ay leeyihiin ilaalinaya oo ka ilaalinaya in cid kale soo gasho aqoon-yahanku waa mid isku dayaya ummaddu waxa xune ay haysato mid duminaya hadday qabiiltay hadday mukhadaraad tahay hadday dhaqan xumo kala tahay hadday ammaano darro tahay waxa allaaliya waxa bulshada inay horu marto kor u ruqaansata u diidaya waa qofkii ka hufi lahaa macnaheedu waxa weeyaan waa inu isagu markaa noqdaa qof nadiifa